بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ضمان أرض الصوماليات وسلامتهن ميل والبا الدنيا كجوكتان ومعلن داهر ديكشنري كنا سودو هذا عشركي أفريتونات أنا قلت لقلني أرض الكورسات إجانيسا الشبيلة English online عشر كان ما أنت وحكو سبسني هاي وبasic grammar وحواي grammar أساسي واي basic قفك توصل جرنين grammar كا قاسان basic جملة ما ديسان كرو قلت كيسنا وبدين هاي ما أنتو حنكالي دونا إن عوان لي يرادو prepositions of prepositions ميلياشا of place قوة okay place وميلا لأدو سيدا دكان سيدا school سيدا حفلات okay ميلا لأدو وحلو يقانا place okay prepositions of place نوا سدح and at in iyo on isla saddexdan hadda kor waxaan soo isticmaalay prepositions of time hadda xasuustid waayahay saddexdan at iyo in iyo on waxaa loo isticmaali karaa prepositions of place iyo prepositions of time labadaba loo adeegsan karaa soo maanta waxaan ka hadlaynaa prepositions of place okay waayahay at iyo in iyo on laga bilaabo maanta cashirkan haddaad dhamaysto waxaan filayaa arday inaad fahmi doontid xilliga la isticmaalo at iyo in iyo on so haddii aad diyaar tahay arday cashirka aan guda galno waayahay la soco definitionkan sharxaadan use isticmaal at okay xarafkaas at prepositionka u isticmaal with small locations meelaha yaryar small locations goobaha yaryar ee la aado u isticmaal for example tusaale ahaan I am at home aniga guriga ayaan joogaa she's at the meeting iyada shirka ayay joogtaa ama kulanka ayay joogtaa are you at the office xafiiska miyaad joogtaa adiga he is at the entrance asaga afaafka dhismaha hore ayuu joogaa I am at work aniga shaqada ayaan jiraa ama aan joogaa they are at school iyaga iskuulka ayay jiraan ama ay joogaan I am at the party aniga xafladda ayaan joogaa she is at the station iyada bosteejada ayay joogtaa he is at the wedding isaga arooska ayuu joogaa they are at the cinema iyaga shaneemada ay jiraan ama ay joogaan I am at the library aniga maktabadda ayaan joogaa who is at the door yaa taagan albaabka he is sitting at the corner isaga geeska ayuu fadhiyaa I am at university aniga jaamacad ayaan jiraa ama aan joogaa arday preposition at u isticmaal waxyaabaha aan soo sheegay waayahay sidaan u isticmaalaynaa marka in haddana la soco use isticmaal in waxaad isticmaalaysaa preposition in with enclosed spaces meelaha enclosed meelaha wareegsan meel kastoo wareegsan sida box oo kale sida gaari oo kale meel kastoo daboolan u isticmaal in u isticmaal for example tusaale ahaan she is in the room iyada qolka ayay ku jirtaa who is in my car gaarigayga yaa ku dhex jira put the box in the box put the box in the box put geli the box buwaagta in the box sanduuqa geli ama baakadaas geli the teacher is in the class macalinka fasalka ayuu ku dhex jiraa okay what is he doing in the garden muxuu ka sameynayaa beerta ama darjiinka I live in the town aniga magaalada ayaan ku noolahay the car gaarigana is in the garageka ayuu ku jiraa the birds shimbiruhuna are flying waxay ku duulayaan in the sky cirka he lives in Somalia isaga wadanka Soomaaliya ayuu ku nool yahay markaad wadan aad sheegtid in ayaad leedahay I am in the bathroom musqusha ayaan ku dhex jiraa I want to travel in the world adduunka inaan ku safro ayaan rabaa what's your pocket jeebkaaga maxaa ku jira get in the car gaariga soo fuul I am in the street wadada ayaan joogaa waayo arday waxaa faa'iidaystay in u isticmaal waxaan soo sheegay oo dhan okay finally use isticmaal on with service oogada sare wax kastoo saaran oogada sare okay in waxa waa wax kastoo gudaha ku jira onna waxa waa wax kastoo service muuqda wax kastoo meel dushiisa saaran service u isticmaal for example tusaale put the book on the desk saar buuga miiska dushiisa desk waxaa lahaa miisaska oo qaanadaha leh my son wiilkayga is on the trainka ayuu saaran yahay
I am on the bus. Aniga baska ayaan saaranahay. The passengers rakaabku are on the plane. Diyaaraday saaran yihiin. We learned that waxaan kusoo ogaanay taas on the page 5. Pagekii 5 ayaan kusoo ogaanay. Dad aabe works on the farm. Beerta ayuu ka shaqeeyaa. What's on TV? Telefishinka maxaa daaran? The cat bisadu is on the wall. Darbiga ayay saaran tahay. I met him on the way. Wadada ayaan kula kulmay. I heard that on the radio. Raadiyaha ayaan ka maqlay arrintaas. I dropped the cup on the floor. Waxa igaga dhacay the cup. Bakeeriga on the floor. Dhulka ama sagxadda. I came here on foot. Inta cag ayaan ku imaaday log. Soo lugayay. I was riding on a horse. Faras ayaan wadaayay. Have you ever traveled on a ship? Weligaa markab ma ku safartay? Arday waxaa faa'iidaystay hadda isticmaal meel kastoo ad aan u isticmaal exercise-ka, meel kastoo in u isticmaal exercise-ka, iyo meel kastoo on u isticmaal exercise-ka.